Fanaanka caanka ah ee Sultan Seyraar ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu xidhay gudaha Denmark halkaas oo uu ka soo degay gegada diyaaradaha. Fanaanka caanka ah Sultan Seyraar ayaa socdaalkiisa Yurub ku tegayay wadamo dhowr ah. Muuqaal uu iska soo duubay DJ-ga caanka ah ee DJ Suber ayaa waxa uu ku sheegay in fanaanka ay isku dayeen kooxi inay qalalaase geliyaan, hase ahaatee uu gudaha airport-ka ku xidhnaa muddo saacado ah. Si kastaba ha ahaatee, Alfanaan Seyraar ayaa waxaa soo wajahaya xaalado kala duwan, taas oo lagu sheegay in qolyo ka soo horjeeda fanaanka ay carqaladeeyeen safarkiisa, kuwaas oo doonaya gebi ahaanba in fanaanka aanu ka soo degin gegida diyaaradaha. Hase ahaatee, DJ Suber oo aad u careysan ayaa muuqaalkan waxa uu ku sheegay inay jiraan dadyow xaasiday kuwaas oo doonayay in gebi ahaanba Sultan Seyraar aanu ka soo degin gegida diyaaradaha. Hase ahaatee, uu isaga iyo fanaankuba ay isla muuqunteen oo ay gebi ahaanba kaga dhabeeyeen imaanshiyaha ay imanayeen gudaha Yurub. Fanaanka ayaa markii ugu horeysay lagu qashqashaday gudaha Yurub, waxaana u muuqataa in fanaanka ay jiraan kooxo doonaya in gebi ahaanba aanu iman wadamada Yurub. Waxaana moodaa in maalmihii ugu dambeysay ay fanaaniintu ay la soo darsaysay xaalad ah in gebi ahaanba lasoo weeraro, sidoo kalena la qashqashaado marka ay fanka ku dhiganayaan gudaha wadamada qaar, kuwaas oo aad moodo in hadda loo soo jeestay. Waxaana samaysmay kooxo dhuni raac ah kuwaas oo doonaya in fanaaniinta imanaysa Yurub ay lacago baad ah intay ka qaadaan, haddana se showgoodana gebi ahaanba ay ka baabi'iyaan. Waxaana ugu dambeysay showgii ugu dambeeyay ee Farxiyo Fiska iyo sidoo kale Faadimiin, taas oo la ogaa xaaladii ugu dambeysay ee la soo daristay oo ahayd in laba shakhsi ama laba qof ay halkaasi ku dhinteen, sidoo kalena qalalaase weynana halkaasi uu ka dhacay. Hase ahaatee, fanaaniinta aadka u weyn ee sumcadda ku leh baraha bulshada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayaan markii hore waxaan la soo darsi jirin, laakiinse hadda ay u muuqata in fanaaniinta waaweynaa loo soo dhigtay oo la doonayo in lacago baad ah inta laga qaado dabeedna showgooda gebi ahaanba laga kala kiciyo oo aanu noqon mid qabsooma. Isku soo wada duubo, fanaaniinta Yurub joogta iyo kuwa Asia jooga iyo Afrikaba haddii aanay ka tashan xaaladaha la soo darsaya, waxay noqon doontaa tusbax furtay oo waxaa sii dallaaci doona kooxaha ee baadda ka qaadaya fanaaniinta, kuwaas oo doonaya in showyada ay dhiganayaan inay lacag kaga qaadaan sida hadda muuqataba.